dilaaga saxafiga waa barnaamij gaar ah oo aynu kaga hadlayno silsilad soo taxnayd muddo ah oo lagu laayay wariyaal Soomaaliyeed iyagoo gudanaya waajibaadkooda shaqo yaa dilaalaha u naxariistay Mahad Axmed Cilmi sidee loo dhakray Cali Iimaan Sharmaake ragii dilay Mahad goobtan isku aragnay masaajidka iyagoo damacoodu yahay in Cali Iimaan goobta ay ku dilaan يا دلي الله أن حريستي بفتري وكالة وررك الصومالية صورة شيخ نور محمد أبكي محلو دلاغا زميه شبكة وربعين الشبه حسن فانتاستيك سيدا الله دكري أحمد عدو عاشور يا كدن بيا قرحي اللي قد لي الله أن حريستي يوسف كينان تفتري إذا عدى مستقبل يا دلي الله أن حريستي وريا نستيح داير فارح وكيل ورايتكي BBC ده مقالة كسمايو iyo wariyaal inta ka badan oo lagu dhagray gudaha wadanka Soomaaliya arbeeda cawradeeda banaysa waadiga calmaday iyo TV-ga caasha galiye ma Soomaalida la calowdo codkooda ku dhibay barnaamijkan oo xambaarsan macluumaad fara badan oo ku aadan sababta loo dilo wariyaasha iyo sirta ka dambaysa in wariyaal la dilo iyo wariyaal muddo dheer siyaabo kala duwan loogu soo dilay gudaha wadanka Soomaaliya waxa daawad doontaan haduu eebay yiraahdo 5 bishan February saacada markay tahay xilliga Muqdisho 7:15 daqiiqo oo fiidnimo waxaana barnaamijkan isagoo rogaal celisa oo isla habeenka ugu soo laaban doona tobanka habeenimo warka kadib waxa sidoo kale isla habeenkaas barnaamijkaas aad ka dhageysan doontaan idaacadaha raadiyo Muqdisho iyo kulmiye magaalada Muqdisho dadka aan fursad u helin inay shaashada ka daawadaan waxa ay ka dheehan karaan YouTube-ka SNTV